kulanti wanaagsan markale asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta waa jimce waxaan idin leeyahay jimca mubaarak qodobo waaweyn oo soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn ayaanu barnaamijka ku haynaa gebi ahaantii waxaynu ku faaqidi doonaa dagaalka ka soconaya gobolka bariga dhexe haddaba maxaa soo kordhay goordhow telefishinka Iran ayaa ka warbixiyay weerar lagu qaaday maraakiib doonaysay inay maraan Hormuz iyagoo la sheegay inay iska dhagatirayeen digniinaha Iran waxaana la sheegay in markaa dab uu ka kacay maraakiibtaasi haddaba wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera waxay leedahay telefishinka Iran ayaa goordhow sheegay in la bartilmaameedsaday markab isku dayay inuu maro marinbiyoodka la yiraahdo Hormuz haddaba markabkan ayaa la sheegay inuu khilaafay hadallada iyo awaamiirta waxaana la sheegay in mid ka mid ah diyaaradaha daroonka Iran ay markabkaasi ku dhacday waxayna sababtay in dab xoog leh uu ka kaco hay-adda ganacsiga badaha u qaabilsan Britain ayaa waxay sheegtay inay soo gaareen warar sheegaya in la bartilmaameedsaday markab ay sheegtay inuu markaa ku dhawaa marinbiyoodka Hormuz isagoo 6 mayl u jiray badda dhanka waqooyi ee Oman meesha marka nimanka Iiraaniyiintu waxay leeyihiin meeshan annaga noo xirtaa soo marinina Faransiiska hadda wuxuu soo saaray war uu leeyahay 58 markab oo xamuula nooga xaniban khaliijka meel ay maraan ilaahay walla xirta meesha maxaa sameynaa ay ku hayaan marka meesha waa xirta Mareykankuna shalay ilaa maanta ilaa daraad waxay ku celinayaan waxay leeyihiin maraakiibta ciidankeena ayaa gudbin doona marka maxaa la gudbinaa leeyahay hadda galabta ugu dambeysay jugta la iska saaraya meeshan markabkii Mareykanku ay yiraahdaan soo gudub nimankan doon iyo markab iyo waxaan inay meesha ku soo weeraraan waaba iska dhaafeen drone-iskiya diyaarsan meesha saas u waardiyeysanay markabkii yimaada dalaq ay dhehaysaa dabkana waa kacay waqti drone-ka gantaal ka daranba waa gantaal diyaarada waay marka hawshaasu halkaasay marinka Hormuz wali wuxuu u xiran yahay Iran wax soo dhaafi kara ma jiraan war goordhow warbaahinta Israa'iil ay sii daayeen wasiirkii maaliyadda Israa'iil Smotrich ninkaas waxaa ku xasuusanaa Gaza arinteeda isaga iyo Ben Gvir iyo nimanka waa taqaanin waa ninkii dhibka badnaa ee maaragtay Smotrich waxaa la sheegay wiil uu dhalay in la qaramsaday yaa cunay marka wiilkiisii Xisbullah yaa qaramsatay sarkaal wuxuu ahaa lagu leeyahay ciidamada koonfurta Lubnaan hadda warar kala duwan soo baxaya qaar waxay sheegayaan dhaawac weeye waa halisa qaar waxay leeyihiin waa tagay waxaasa la wadaa odagii oo hinaaleeyay waba oo marka hore dadkii uu ku farxi jiray dadkii reer Gaza caruurtooda la leyn jiray la baabi'in jiray sooto ku jees jiray Gaza waa qaadanayna waa gubaynaa kulligood meesha nimanka jooga hal la buufiyo saan asaga iyo ninka leeyahay Ben Gvir waxay ku dhigeen reer Gaza nimankaasu say u ciqaabay waliba asaga maaliyadu ahaa Falastiiniyiinta lacagta ka go kan samee hadda maanta waxa lagu leeyahay wiilkiisi curadka ahaa Xisbullah alla tagta marka sheeko waa soo kululaad haddaba marka aan idin soo wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera waxay sheegayaan wiil uu dhalay ninka la yiraahdo wasiirka maaliyadda Smotrich ayaa lagu qaramsaday xuduudda Lubnaan haddaba idaacadda ciidanka Israa'iil ayaa waxay sheegtay inuu dhaawacmay wiilkii curadka ahaa ee wasiirka maaliyadda Bezalel Smotrich isaga keligii maahana iyo askar kale markii la sheegay in xuduudda isku horimaadyo ka dhacay ay halkaa ku dhaawacmeen warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegayaan in markaa wiilka Smotrich uu ka tirsanaa guutada la yiraahdo Gafa'ati isagoo ku dhaawacmay koonfurta Lubnaan marka wararka qaar waxay leeyihiin waxa la sheegayaa
inay ninkaa ka tagta baashii uu dhintay Smotrich-kina uu markaa oohin waxaa lagu leeyahay wargeyska la yidhahdo Haaretz wuxuu leeyahay Smotrich oo si la yaab leh uga naxay wiilkiis wallahi yaab wuu ka naxay wiilkiisa lagulaha dadkii oo reer Gazana ilmahoodii markii saas ay u wadeen oo dhiigu ka daadanay uu ku qoslay marka waxa waaye maalinba maalinteeda maanta asaga ooynay shalayna asaga maartay meel fadhiyo maartay ku qoslay dadka marka waxa leeyahay waliba intay qarinayaan ka badan alle nimankan wax falaqaynay waxay leeyihiin wiilka Smotrich inta la leeyahay imisa tagtay saacadaani wasiiro waxaani dad badan waa ku daayeenay leeyihiin marka laakiin nimanka waxba ma sheegaan way iska qarsadaan jugtooda way qarsadaan qodobka kale muhiimka ah barnaamijkii ka koreeyay saaka aan soo gudbay waxa ku soo qaadanay in Israa'iil Tel Aviv daakum laga dhigo dabku ka kacay hadda waxa soo baxay kumanaan Israa'iiliyiin ah in ay guri la'aan yihiin guryoodii waa dumeen dhowr kun ayaa hadda waxa leeyahay guryaha laga soo saaray oo maartay burburay meel gurya loo raadinay islaamihii oo banaanka taagan yahuudi oo iska barooranaya waxa la keenay aan idin tuso telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay waxa la soo daabulay ilaa hadeer ilaa galabta 2328 Israa'iiliyiin oo guryahoodii burburay laga soo saaray wasaaradda caafimaadka Israa'iil ayaa sheegtay 2328 Israa'iiliyiin in guryahoodii laga soo qaaday iyadoo la sheegay kala bar dadkaasi in ay markaa laga soo saaray xaafado ka tirsan magaalada Tel Aviv marka halka ayaa laga soo daadguray marka meeshan wax isu naxariisana ma jiraan meeshan marka waxa waaye jugta la isku hayaa Mareykan iyo Israa'iil waxay leeyihiin duqaynay maartay gantaalihii Iran way yaraadeen maartay waa ka adkaanay hatta dhulka hoostiisa meel oo aayatullaahiga uu guri ku lahaa dhulka hoostiisa oo ay ku shiri jireen waa burburinay waxaasay ayaguna daldalayaan laakiin xaqaa'iqa dhabta ah waxa waaye labada dhinacba waxba la isuma reebanayo waa la isgaraacayaa Kuwait oo kale waxay leedahay khasaaro weyn aan soo gaaray dhibaataan soo gaartay Imaaraadka hadda waxaan arkayay Fujairah meesha la yiraahdo imaaradda la yiraahdo Fujairah dab xoog laha ka kacay marka arintu marka waxa waaye waxbaan joojinay iyo waxbaan yareyn wax leeyahay waxay leeyihiin haddaan gantaalo cusub la soo baxnaba marka xaaladdu halkaas maray marka waxaan u gudbaynaa shirarkii jaraa'id warbixinada ay ku soo gudbiyaan Iran iyo awlaadeeda wixii ay sameeyeen haddaba marka waxaynu ku hormaraynaa ciidanka ilaalada kacaanka Iran haddaba ciidanka ilaalada kacaanka Iran war-saxaafadeedkoodii galabta waxay ku sheegeen inay sawaariiq cusub isticmaaleen iyagoo la beegsaday saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay dawladaha Khaliijka haddaba waxaa la sheegay inay adeegsadeen weeraro dhinaca gantaalka cusub ee la yiraahdo Kharmashar 4 kaasoo la sheegay madaxiisa qaraxyada uu qaado inay gaarayaan 2 tan oo qaraxyo ah in uu qaado macnaha walxaha qarxa meeshii uu ku dhacana uu war ka keenayo haddaba sawaariiqdan waxa la yiraahdaa waa noocyada cusub waxaana la sheegay saldhigyada Mareykanka ee Khaliijka iyo airportka Tel Aviv ee Ben Gurion magaalada Haifa iyo Tel Aviv saacadihii la soo dhaafay inay markaa halkaasi ku dhaceen oo ay weerareen dhanka kale حرس ثوريga ama ciidanka ilaalada kacaanka warkoodii galabnimo waxay ku sheegeen inay bartilmaameedsadeen saldhigyada Mareykanka iyo kuwa Israa'iil waxay sheegeen inay rideen goor dhaweyd dufcadii 22aad ee gantaalaha ay ku wajahan Mareykanka iyo Sahanuuniyadda dhanka kale waxay sheegeen wararkii ugu waaweynaa waxa kamid ah inay duqeeyeen xarun telefoonada ay ka dhageysan jireen Mareykanka oo ku yaalay gobolka Kurdistan ee dalka Iraq waxaana lagu duqeeyay diyaaradaha isqarxinaya xaruntaasi haddaba waxay ku taalay deegaanka la yiraahdo Sordash
kurdistaanta ciraaq ayay ku taalay sida la leeyahay. waayahay markanna waxaynu u gudbaynaa xisbullah iyaguna warbixinadii galabta ay soo saareen wararkii ugu dambeeyey iyo wixii ay qabteen. haddaba telefishinka aljaziira wuxuu leeyahay xisbullah iyaduna galabta warkeedii waxay soo saartay, waxay leedahay waxaynu duqaynay meesha yahuuddu degan tahay ee la yidhaahdo sacsac. xisbullah waxay sheegeen inay sawaariikh ku dhufteen deegaankaas, iyagoo markii horena dadka uga sii digay inay deegaanadaasi waqooyiga falastiin ay xoogga ku haysato israa'iil ay iskaga baxaan. dhanka kale xisbullah waxay sheegeen saacadihii lasoo dhaafay inay bartilmaameedsadeen goobo muhiima oo ku yaalay koonfurta lubnaan. xisbullah waxay sheegeen inay duqeeyeen deegaanka la yidhaahdo balaad ee israa'iil, waxayna sheegeen in koonfurta lubnaan goobihii ay joogeen saaliita ay weerareen iyagoo isticmaalaya diyaarado daroon ah oo kuwa isqarxinaya ah. waxayna sheegeen inay xaqiijiyeen in weeraradaasi ay meelihii loogu talagalay diyaaradaha ku dhaceen oo ay aaminsan yihiin khasaaro xoog leh in halkaa uu ka dhashay. waayahay wararkaasuna waxay ahaayeen kuwii galabnimo ee ay soo saareen saacadihii lasoo dhaafay howlgalladii ay qabteen iiraan iyo awlaadeeda. markaa qoladii ciraaqiyiinta weli warkama hayno, iyaga kiisaakaa noogu dambeeyey, xaalku halkaasuu maraya. barnaamijkeena saddexaad waa barnaamijkii habeennimo jimcaha sabti soo galayo. caawa waxaynu ku faahfaahin doonaa warar cusub oo iska soo daba dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn dagaalka culus ee ka socda bariga dhexe. haddaba waxaynu ku bilaabaynaa goor dhoweyd iiraaniyiintu waxay sheegeen gantaalaha jugta culus iyo dronis inay la dhaceen meelo kala duwan oo ka tirsan israa'iil gudaheeda iyo wadamada kale ee saldhigyada uu ku leeyahay maraykanka. haddaba wararkii ugu dambeeyey sheekadan haddaan idinla wadaago waxaa leeyahay mawjado cusub oo weerar dhinaca gantaalaha iiraan ay soo qaaday ayaa waxaa la sheegay in lagu weeraray israa'iil. ciidanka israa'iil waxay xaqiijiyeen goor dhoweyd in sawaariikh ka soo dhacday dhanka iiraan ay la tacaalayaan gantaalahooda difaaca hawada oo ay doonayaan inay ka hortagaan. wasaaradda arrimaha gudaha israa'iil ayaa sheegtay in siriga digniinta laga maqlay meelo kala duwan oo ay ku jirto talaabiib al kubra, iyadoo la sheegay gantaalaha qaar inay durbaba bilaabeen inay ku dhacaan gudaha israa'iil. telefishinka iiraan ayaa sheegay in la soo riday mawjado cusub oo gantaalaha oo iiraan xaggeeda ka yimid. hadda telefishinka markaan fiirsanayay ayaa waxaan ka duubay video la yaab leh, haddaan idiin soo daayo waa yaabi doontaan. siiriga dhacaya waxa hawada socda oo wada holcaya ma gantaalkii iiraan soo ridaa, ma kuwii iyagu ka horgeynayeena dadkii israa'iiliyiinta oo meel laga jira aqoola. aan idin tuso videogaas. waa tahay marka waa arkaysaan marka xaalku halkaasuu joogaa. nin wariyaa la wareysanayay ayaa wuxuu sheegay oo jooga Suhayb la yiraahdo aljaziira ka tirsan, wuxuu joogaa magaalada Tahraan caasimada Iiraan, wariyaasha dagaalka ka soo waramayo waay. markaasuu wuxuu yiri waxaa dhaco yiri habeen kasta waxaynu hadda kala faahno jadwalka ogaano yiri habeenkii 3 weerar ayaa lagu qaadaa. wuxuu yiri habeenkii fiidka hore weerar jugta culus waa midka hadda socda, saq dhexe jugta culus, waaga markuu bariya rabana jugta culus. saddexdaas waa loo qoray sida dhakhtar oo kale ugu qoray nimanka ilaalada kacaanka Iiraan. 3 weerar oo culus Israa'iil waa la laqsiina habeen kasta. maxaa jiro yiri marka kuwa dhax socda jiro yiri daroon halkaa ka baxday. ciraaqiyiintu waxay tuureen, xisbullah waxayda xisaab male waa iska tuurataa waxaasoo dhan. laakiin iiraan gantaalaheeda culus Israa'iil habeen walba 3 jeer ay soo salaamaan, maalin walbana 4 jeer ay salaamaan. markaas waxaa la weydiiyey, waxaa lagu yiri maraykanku waxay yiraahdeen manasaat sawaariikh
ama meelihii gantaalaha ka soo dhacayeen waa baabi'inay 90% midaale mid wuxuu leeyahay 80% Trump xalay wuxuu lahaa 58% nimankanu gantaal dambe ma ridayaan waa tabar beeleena la lahayse waxaas wax ka jira ma jiraan nimankan wax gantaal cil ka celiye malaha markasta saasay u ridayaan gantaalood jugtaasay ku wadaan marka waana arkaynaa hadda iyagiyaa sheegayaba Al Jazeera waxa hadda ay ka soo xiganaysaa warbaahintooda waxa leedahay ciidanka Israa'iil oo dhan waxay ku jiraan heegan gantaalaas iyo siirigaas ayaa isqabsaday awada waliba meelaha la duqeey waxa kamid ah meesha la yiraahdo Tel Aviv al-Kubra la yiraahdo dadka qadeeyaa degan meesha wasiirada iyo dadka sida fiican u qadeeya dadkana waa qadeeyaan marka macnaha arday dadka taajiriinta ah Suuliyo dawladda iyo waxaas dhanka kale waxa la sheegay in war goordhow soo baxay isagana la yiri Israa'iil waxay adkaysay ammaanka mas'uuliyiinteeda هذا لو أتكي وحلا بقي الاغتيال اللي قصمي دلال قاد ما إن إيران مارت يكون سمي سويو جودها إسرائيل جو مركا هذا ولا جورجورين يا قارب وحيتاجي ننا ودو وحيتاجي يهودي وحصقري ما بتجوجان بوزير هذا نتنياهو مدحوينه ما بتجوجان بودك وضم هذا الجيران جريج يوروب تان كلمة هاس أوقحين كلا ما هاس يجوجان ماذا وحول جرمال كي جوجان بدول بعقورة مركو عليه تدكي شعبك يرقتالها يسجلونتين مركا شيكاس ويدون الكاس مرة وركا روحي شرب مركا عاود جرا لو كان ولا بابي جوكتال وهي وحمطور كلا ليه حدنا مدة كلا دماغتك كلا تشتري دماغك جيسرية حد قلبت وحلي رقرح دعي ديارات كوا الشدال كاسية ديارتها كلا وهوذا تاجند وبويده wax lagu soo dhuftay lama yaqaan iyadoon dhig la qabta lahayn ay waxay ku degtay garoonka Bangorion wax tafaasiil ah oo laga bixiyana ma jiraan laakiin waxa la yiri hubuud idraari la yiri degdeg u degtay hal yabanay wadada la yabanay degdeg Al Jazeera waxay tiri meel kasta waa la xiriirnay wax akhbaar ma laakiin waxaan haynaa xog ku saabsan in wax soo gaareen nimanku baabeen difaacooda cirka kana laha diyaaradii booyadaha marka waxay shiraadeen xogaa diyaaradahan dagaalamaya u soo dhawaada jugta laga geliyaa leeyahay marka video Al Jazeera ay soo bandhigtay waan idin hayaa marka hore qoraalka Al Jazeera ay qortay hadaan tuso Al Jazeera waxay soo sawirtay diyaaradii waxayna ku qortay hubuud idraari waxa si degdeg u degatay diyaarad kuwa shidaalka qaada ah waxayna ku degtay madaarka la yiraahdo Bangorion hadaba marka videoga aan aragno iyadoo marka dhig la qabta lahayn oo cararaysa وكان دولة مركا وأركينا مركا حالده هالكاي مريسو ماشي أي واحد مريان ونوتشينا مركا وركا كلا أنا وجود بينها مركا وحوياي معلك وين مركا إرمان ورعيان مركا ترام هالليو مركا تلياش إذا ما هالليان وحبوا تكدع وحشلا إيران تقول كابلا لسمة وابع بعضي ترام نكلا هواي هاي سديبين هوب كان حدقين إذا ماذا حتى بوليسك يوحد لنا هوب كهدقين أنيقونا وحن نقونا نيكا كأطوراء فيلين كان ومعناها عد كستا ومدح لوغا ديغا إيران نينان أنيقا جيستو نقونا نيكا إسكانا هواي لكن الدنيا كلام ماشان جرت حتى وحن لقود دقيا شيناها الروس معالك وين واقعيلنا يعني وحليه أنيقا ونبا كان مرة كتخلص لهينا وحن إسوه كانت تجي شيناس الروس ما وين ميا مركور أنا وين به عبد شيء جاي وعليه نمكاس يسوق كارتي هذا مركا أريد تصو وربحين ولا جقر الشيء كذا عجيب كا تلفزيون كالجزيرة وحوليه هاي واشنطن بوست جريدة دلالية هاي وحي قرطي إن مريكن كو أي رادين روس كو وحو كالمين يا إيران وكالمين يا سي أي أوبرت المامات ستو عيدا ماذا مريكن كا
haddaba jiradda la yidhaha Washington Post maantoo jimcaha waxay leedahay 3 meelood oo macluumaadkan aynu ka helnay oo diiday magacooda in la faafiyo oo saraakiil Maraykan ah waxay sheegeen macluumaadka sirdoonkooda Maraykanka ay heleen inay sheegayaan in Ruushka uu macluumaad sirdoon siiyay Iran uu mar walba siiyo si ay u bartilmaameedsadaan ciidamada Maraykanka ee ku sugan bariga dhexe waxaana la sheegay in macluumaadkaas askarta iyo diyaaradaha iyo maraakiibta iyo meelaha ay joogaan uu macluumaadkaas siinayo Iran hadduu sheegaya laakiin Al-Jazeera goorma sheegtay in sawirada satellite-ka ay caawiyaan Iran mar hore xogta lahay Maraykanka marka way cashan waayeen saraakiishoodii hadda wargeyskoodii Washington Post qoraya wuxuu leeyahay naftaasana haysa oo maartay nimankii ayaa wixii xog ah dhan bixinay halkaas ayaa ciidan jooga halkaas gantaal la dhigay halkaas satellite-yadii wixii hore istikhbaaraadkoodii ayaa wixii la siinaya gantaalihii marka ma baharee ma lumayaan nag meesha ku dhacayaan marka Shiinahana way ku dhagayeen macalka weyn marka caawa qeelinayaan haddaba telefishinka CNN asaguna warar uu soo saaray wuxuu leeyahay Shiinaysku waxa uu siinayaa Iran kaalmo ayuu siinayaa macluumaad sirdoon Maraykanku ay hayaan waxay sheegeen in Shiinuhu uu siiyay Iran maaliyad lacageed oo ay ku samaysanaysay waxyaabo kala duwan sidoo kale wuxuu siiyay gantaalaha sawaariiqda ah oo markaa qaarkood hadda ay isticmaalayso dhanka kalena waxa warbixinta Maraykanku ku sheegeen CNN-ku in Shiinuhu uu ka taxadar badan yahay Ruushka Shiinuhu aad isuma muujinayo laakiin gantaalahana dhibay oo hawada aan ka gali laana ninka keena way yiraahdeen waxa soo dhalaadii sheegayaan waas goorbay anaga ogeyn waxa hadda ka hadlayaan marka nimankii marka aflabadii qaylinayaan absidaas ayaana ku haysataa la leeyahay ayaa ku dhacday dhanka kale Israa'iil waxay qaadeen iyo Maraykan saacadii la soo dhaafay 200 oo hadaf ay yiraahdeen 200 oo meelood oo Iran ku taala ayaanu duqaynay ay yiraahdeen dhanka kale Beirut duqaymihii ay ka sameysay waxa la sheegay inay beegsatay safaaradda Iran ay ku leedahay magaalada Beirut ee caasimadda Lebanon haddaba aad soo jariirada leeyahay ra'yul yawm waxay leedahay weerarada Israa'iil isdaba joog ah ee ay ku hayso koonfurta Lebanon ayaa waxa la sheegay inay markaa warar soo dhacay ay sheegayaan inay duqaysay maanta hareeraha safaaradda Iran ay ku leedahay magaalada Beirut wakaas iyaguna way wadaan halkan jugta lagu hayaa halkan qiiqa ka baxaya waxa meesha ka socda waa yaabaysan marka warka isaguna halka kaga gudbaynaa wararkii ay soo saareen caawa wararkii ugu dambeeyay ciidanka ilaalada kacaanka Iran ee Hezbollah iyo Iraaqiyiinta ayaan galaynaa markan waaye waxaan marka hore ku bilaabaynaa ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxay sheegeen inay bilaabeen caawa mawjado kale oo cusub oo markaa weerar ah waxay sheegeen inay bilaabeen mawjado weerar ciidanka ilaalada kacaanka Iran oo ka dhan ah sahyuuniyada iyo saldhigyada Maraykanka ee gobolka waxay sheegeen in markaa ay u isticmaaleen weerarkan sawaariiq iyo diyaarado daroon ah dhanka kale ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxay sheegeen inay weerar ku qaadeen oo ay duqeeyeen saldhigyada ciidamada Maraykanka uu ku leeyahay Bahrain inay duqeeyeen saacadii la soo dhaafay dhanka kale Hezbollah ayaa iyaduna war soo saartay caawa waxay sheegeen saacadii ugu dambeeyay inay weerareen oo weerar ku qaadeen saldhig military oo la yiraahdo Katsafia oo ciidanka Israa'iil ay leeyihiin iyagoo ku weeraray diyaarado drones ah waxaana la sheegay saldhiga inuu ku yaalay buuraleyda Golan ee Suuriya ay xoog kaga haysato Israa'iil dhanka kale kooxaha Iraaqiyiinta koox la yiraahdo Fasil Awliya الدم العراقي لهذا او كوحا ايران تاغيرسن ayaa caawa war soo saartay waxay sheegeen inay fiidkii weerar ku qaadeen saldhiga la yiraahdo Victoria ee ciidamada Maraykanku ay leeyihiin kaasoo ku dhow meel airportka magaalada Baghdad u dhow halkaas ayay sheegeen inay daakum ka dhigeen way wararkaasu marka waxay ahaayeen kuwii ugu dambeeyay ee saacadii ugu dambeeyay xaaladdu halka ay taagan tahay caawa